sida dad badani ay qireen ila diblomaasiyadeed ay wariyeen saraakiil muhiim ahna oo arrinta gobolka la socda ay marar badani iyaguna muujiyeen dareenkooda tuun waxay mar kale muujinaysaa in Beijing dareenadeeda diidmo ee habdhaqanka dowladaha qaar uu ahaa mid sareeya sanadihii ugu dambeeyay. siyaasadda Mareykanka iyo xulafadiisa ee Beijing waa mid sida muuqata togan oo marna taban sida dadka qaarkood ay qabaan. hanaqaadka iyo dhismaha awoodda dhaqaale siyaasad iyo cudud ciidanba ee Beijing marna ma farxad gelin Mareykan iyo garbihiisa. sidaas awgeed ayay marna canaan hoose marna cadaawad ah muuqanba ay u soo saarayeen, balse Beijing danaheeda ayaa uga muhiimsan ku mashquulka qeyrkeed, waxaana mar walbaba ay mudnaanta koowaad siinaysay gaaritaanka yoolasheeda waaweyn. markastase arrinta isku dhacu waxa uu ahaa qadiyadaha Hong Kong iyo Taiwan, haba ugu horeysa jasiiradda Taiwan. China waxay aaminsan tahay Taiwan inay tahay dhul ka mid ah dalweynaha shacabka Shiinaha, sidaas awgeedna marna aysan gorgortan ka galaynin qiyamka qarankeeda iyo guud ahaan xuduudaha dalkeeda oo dastuurkeeda uu awood u siinayo in ciidamada kala duwan ee qaranka Shiinuhu ay si toos ah u difaacaan. dunidu inta badani waxay sawiranaysaa sawir maangal ah muujinayana mahuraanimada Beijing mar ay dagaal ugu qaadi karto Taiwan. marar badan warbaahinada ka faalooda arrimaha diblomaasiyadda, dhaqaalaha, siyaasadda iyo ciidankuba waxay intooda badani sawirteen in ay Beijing Moscow ka baranayso xeeladaha dagaalka, tilmaamayaasha abaabulka, qaadashada go'aano qaraar iyo fulinta dano dagaal horseedaya. tusaaluhuna waa Ukraine iyo qorshihii Putin ee ah markii uu u bareeray in 24 bishii February uu dagaal toos ah ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. taas ayaana muujinaysa sida majalada caanka ee Foreign Policy iyo warbaahinada kale ee ka soo baxa Asia iyo qaar ka soo baxa Yurub ay muujiyeen in Beijing marna aysan qorshaheeda ka waaban, tusaalayaasheeda ay cadcad yihiin, tilmaamayaasheeduna ay yihiin halbeeg quman oo mar kastaba taageeraya China wada jirta, China midaysan iyo China cudud ku hogaamisa caalamka intiisa kale. Mareykanku marna ma farxad gelin doonto loolanka uga imaanaya gobolkaas iyo dhaqaalaha kobcaya, siyaasadda xawliga ku socota iyo tallaabooyinka Beijing ay qaadayso. waana tan Mareykanka iyo maamulkiisa iyo xulafadiisuba ay marar badani shar ugu arkeen wadajirka hoose ee hogaamiyaasha Shiinaha iyo Ruushka, taasoo xitaa mararka qaybtood warbaahinta iyo ila sirdoon ay xaqiijiyeen in gacanta taageero ee Putin xagga dambe uga imaanaysa ay tahay Beijing oo weliba si dhow uga biyadiisan siyaasadda reer galbeedka ee cadaawadda iyo culayska ku dhisan. hadda madaxweynaha waddanka Mareykanka waxa uu si cad u sheegay in Mareykanka uu si toos ah u difaaci doono Taiwan, uusan haba yaraatee marna wax gorgortan ah ka gali doonin sidii uu u difaaci lahaa Taiwan, weliba uu ilaalin lahaa duulaan kasta oo uga yimaada dhinaca iyo Shiinaha. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. That's the commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with the one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dabcan sheegay inuu diyaar u yahay inuu awood muuqata u adeegsado difaaca Taiwan. waxa uu sheegay in Mareykanka uu garab taagan yahay dowladaha kale si loo hubiyo in Shiinaha uusan awood u adeegsan karin Taiwan. waa fariin kale oo muujinaysa in Mareykanka marna uusan ka dibcin aragtida taageer ee Taiwan xaggeeda. waxa uu intaasi ku daray in Shiinuhu uu qatar weyn ku yahay Taiwan, isagoo dabcan sheegay in marar badan uu duulaana ku qaaday
meel u dhow jasiiradda Taiwan diyaaradaha dabcan difaaca ee Shiinaha ayaa marar badan la sheegay inay u dhawaadeen hawada Taiwan qaarkoodna waxaa la xaqiijiyay inay hawada gudaha u galeen balse Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa u arka daandaansi cad iyo tilmaamo ka dhan ah in ay China wali doonayso inay maquunin awood military u adeegsato laakiin Beijing waxay leedahay si kasta ayaanu dalkayaga meel kasta oo kamid ah uga samayn karaynaa hawlgal iyo dhoolatus taas micnaheedu ma aha in aynu ku duulnay Mareykanka iyo wadan kale Taiwan waa qarankeena waa dhulkeena waa ciideena waana qayb kamid ah dhulka bulshada Shiinaha u tirsan ee kamid ah inta uu dastuurkooda siinayo ayuu si cad u yiraahday madaxweynaha wadankaas wasiirka gaashaandhigga ee Shiinaha oo bar wax laga weydiiyay dhaqdhaqaaqooda Taiwan waxa uu yiri ma jira dal qayb kamid ah dalkiisa ku duulaya sidaas awgeed anagu Taiwan way noo tirsan tahay waa dalkayaga cidda u aragta dal kale ama cadow kale iyaga ayay tahay in la weydiiyo fasiraada dheeraad ah